bacdalsalaan meeshaan aan taagannahay waxa weeye waa degmada Wadajir waaxda General Daawud ka soo horjeedka kulliyadda muxuu ahaa Turksom ayay ka soo horjeedaa meeshaan waxaan u nimid waxa weeye waa inaan ay noqoto xero ciidan maanta laga bilaabo waxay noqonaysaa xero ciidan bay noqonaysaa dad waxaa jira muxuu ahaa meelo ka mida qaybo ka mida meeshaan yani dhul ku leh ayagana waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan ugu bedelno dhul kale ilaa ma rabno shacabka inaan meel cidlaa dhigno ma rabno meeshaana waxaan ka samaynayna laga samayn doonaa xero weyn oo military oo ah xeryaha maaragtay tababarka militariga lagu samaynayo oo ay noogu talagaleen dadka aan walaalaha nahay ama aan saaxiibka nahay ee Turkiga sidaas daraaddeed dadka waxaan rabnaa inaan u sheegno inay muxuu ahaa isdajiyaan oo wax problema keenin oo aysan u qaadan ayaga in hanti ay leeyihiin la dhacayo lana shaqeeyaan wax badan bay anfacaysaa oo meeshaani markii ay dhisanto yani oo ciidanku uu soo dego oo ay muxuu ahaa bilicdeeda iyo quruxdeeda noqoto amniga oo dhan ayay qayb ka qaadanaysaa waxay halkaa naga tuseen qaybka ay amniga wax ugu dhiseen oo iyadana si casri ah u dhisan dowladda Turkiga uga mahad celinaynaa arrintan muddo soo jiitamaysay dhulkan isagana qaybna waa sida loo sheego ciidanka iska lahaa qaybna dad baa degan qaybta ciidanka iska lahaa cid allaale ciddii si qaldan ku qaadatayna waxay ciidan waa ciidankii ayaga u baahday ayaga loo soo celiyay midda kale dadka deegaanka ah oo runtii sharciyada haystana waxaan diyaar u nahay oo aan kala tashanay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in dadkaas dhulkooda dhul kale loogu bedelo bacdama tan dan guud tahay bacdama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaranka u baahan yihiin bacdama dawladda Turkiga noo taagan tahay lacagtiina diyaar la tahay dhismaynay bilaabaan diyaar tahay muddo soo jiitamaysay waxaan leenahay dadka meeshan deganow maanta ku qoys qaata wixii dhulka u baahan yihiin xafiiskayga igu imaada laakiin waxaan u ballan qaadaynaa dadka meesha degan inaan dhul kale ugu wareejin doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga inay naga aqbalaan inay dhulkooda mid ka mid ah siiyaan waa uga mahad celinaynaa mid kale waxaan rabaa inaan fariin u diro guddi baan u soo dirnay soo qiimeeya dhulalka iyo boosaska ay noo soo qiimeeyeen noo soo sheegeen iyo dhulalka halkan aan ugu nimid wax aad iyo aad u kala fog waay Soomaaliya musuqmaasuq iyo been iska daaya cid allaale ciddii arrimahaas lagu qabtana waqtigii musuqmaasuqa iyo beenta waa dhammaaday ciddii dhulka leh oo sax ana dhulaa loogu bedelaa laakiin maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa qof walba inuu ku talagalo dhulkan inay la wareegtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin runtii inta muhiimka ah waa la sheegay dhulkan mas'uuliyadiisa ilaaha iska leh ka soke waxaa iska leh mayorka iska leh ama duqa caasimadda Muqdisho ayaa iska leh mas'uuliyadiisa dhulkan wuxuu noqon doonaa dhul guud ahaanba inta mayorka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheegeen dan guud ayaa loo isticmaali doonaa annagana waxaan ballan qaadaynaa in dhulkan ciddii sida mayorka uu sheegay sharci ku degan oo la soo xaqiijiyo in loo bedelo dhul kale loogu bedelo in wax la bedelo in la soo xaqiijiyo guud ahaan waxaa u xil saaran gudoomiyaha gobolka u xil saaran asaa shaqada iska leh cidda uu soo xaqiijiyo inay xaq u leedahay dhulaa loogu bedeli doonaa dhulka lagu bedeli doono oo lagu wareejin doonana waxaa lagu wareejin doonaa gudoomiyaha gacantiisa ama gudoomiyaha ama duqa magaalada gacantiisa ay ku wareegi doontaa waxaas oo hawl ah asaa qaban doona annaga waxaan ka saacidi doonaa wax alla wixii tasiilaad oo arrinkaasi ku saabsan ayaan ka saacidi doonaa marka runtii waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay u qaataan dib u dhiskii waddanka inay tahay arrinkan waa lala socdaa annaga amni darro oo in muddo ah soo socotaan haysa marka waa muhiim ciidamada qalabka sida in dib u dhis lagu sameeyo khaasatan xoogga dalka Soomaaliyeed oo muhiimadiisii ay tahay in waddanka uu ku soo celiyo amnigii iyo kala dambeyntii iyo sharcigii marka in loo helo xerooyin lagu tababaro in loo helo deegaano ay leeyihiin xoogga dalka Soomaaliyeed waa muhiim. Hepinizin bildiği gibi Türkiye devleti ve Türkiye halkı olarak bir inancımız var. Bilenin bilmeyene, olanın olmayana borcu var. Bu prensipten hareketle dost ve kardeş Somali halkına zor günlerinde yardımcı olmak için buradayız ve her alanda, ulaşabildiğimiz her alanda Somali halkına yardımcı olmaya devam ediyoruz. sida dhammaantiin ay og tihiin
annaka Turkiya oo sida Turkiya dawladda Turkiya ahaan waxaan halkan u nimaanay shacabkeena walaalaheena Soomaaliyeed saan u caawin lahayn sida saaxiib dhow oo walaaltinimo leh maaragtay oo sida kala duwan aan ugu caawin lahayn inaan halkan u joogno waa sad ogtihiin. Biz inanıyoruz ki Somali'nin şu makus talihini yenmesi, biraz daha gelirini artırması, zenginleşmesi için her şeyden önce güvenlik ve istikrarın şart olduğunu düşünüyoruz. Annaka ka Turkiya ahaan waxaan maaragtay oo yahay maaragtay waxa aan ku shaqeynayno ama aan damacsannahay walaalaheena Soomaaliyeed sidii ayay dhibaatadii jirtay iga soo kici lahaayeen u noqon lahaayeen si tartiib ah wadan hormaray oo maaragtay qaniya u noqon lahaa faqiirtinimada uga bixi lahaayeen hadafkeena waa midda inaan taas ka shaqeyno. Büyükelçiliğimizin koordinatörlüğünde sağlık alanındaki hizmetlerimizi Kızılay'ın, Türk Kızılay'ın, Maarif Vakfı'nın ve diğer birimlerimizin yaptığı faaliyetlerin yanı sıra biz de Somali'deki güvenlik ve istikrarı tesis edecek Somali ordusunu yeniden tesis etmek, teşkil etmek ve donatmak için buradayız. Dawladda Turkiya qaybo kala duwan halkan imaaday oo hay'adaha sida hay'adda maaragtay tikala dhahayo dhismooyinka sameeysa iyo hay'ooyinka kale oo dhanka waxbarashada ka qayb qaadasha iyo annaka oo maaragtay dhanka ciidanka ka shaqeynayno sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u hormari lahaa u noqon lahaa sidii awoodiisii hore u soo laaba lahayd si markaas ay u hantaan amniga wadanka oo